gudiga qabanqabada xuska sanad guurada 24aad ee qarannimada Soomaaliland ee 18 May ee gobolka Togdher ayaa kulankoodii ugu horeeyay saaka ku yeeshay xafiiska barasaabka gobolka. gudigan oo ka kooban laamaha dawladda, ganacsatada, hay'adaha wadaniga iyo golaha deegaanka Burco ayaa 23 bishan u magacaabay gudoomiyaha gobolka Togdher Maxamed Muuse Diiriye. waxaana kulankoodii saaka ay iskaga dhex doorteen gudoomiye ku-xigeen, xogay, khasnaji iyo xisaabiye. gudoomiyaha gudigaasi qabanqaabo oo ah barasaabka ku-xigeenka Togdher Maxamed Diiriye Xayd, xildhibaan Shiina Faliid iyo Ibrahim Xariir oo ka mid ah gudigaasi ayaa ka hadlay bilowga hawlahooda qabanqaabo. isugu yimi gudidii uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Maxamed Muuse Diiriye una magacaabay xuskii 24aad ee sanad guurada 24aad ee ay dhinmay ee qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxay laga bilaabo maanta oo halka naga duubteen hawlgalkoodii bilaabayaan sidii ay sanad guurada u abaabuli lahaayeen, u dhameystiraan dhinac nabadgelyo, dhinac dhaqaale, dhinac wacyigelin gobol ahaan gobolka oo dhan iyo degmooyinkiisaba inay wada gaarsiiyaan ayay loo magacaabay. waxaanu ka koobayeen gudigaas 14 xubnood. waxaanu TV-ga qaranka u sheegaynaa in laga bilaabo maanta oo naga hawshan halka duubteen lagu og yahay wixii qabanqaabo ah iyo wixii hawla ee ay dhinmay ay leedahay gudida. halkii qarannimo sidaynu gudan lahayn ayuun baa laynaga doonaya, hadday hantida tahay, hadday tahay xil ina wada saaran ayaa annagana kii gobolka gaarna loo sii saaray. waxa aanu ku rajo weynahay in aanu si hagarliya aan uga soo dhalaalno. Mustafa Ismaan, magaalada telefishinka qaranka Soomaaliland.